markaad sujuudsan tahay waxaad dareemaysaa in Allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhoweeyey ayaanahay waanan ku faanayaa waxaan doonayaa in la igu garto garka xaqiiqsadaynaya shahaadu tahay xaq aynase ahayn wax afka keliya lagaga dhawaaqo magacaygu waa Daniel Binishi waxaan qaatay diinta Islaamka 8 sano ka hor waxaan ku dhashay dalka UK da'daydu waa 26 sano waxaan wax ku bartay magaalada Bath waxaan dhiganayay diinta Katoliga intaan wax dhiganay oo dhan waxaan magaalada Bath ku noolaa laga bilaabo 13 jirkaygii sidoo kale waxaan waqtigaygii dhalinyarada ku soo qaatay magaaladaas laakiin nasiib wanaag asxaabtaydu may ahayn xilliga qaar xunxun maskaxdayda waxa ku weynaa sida ku bad ciyaarista waqti ku soo qaadashada beeraha iyo inaan asxaabta la baxo wax caajisana man dareemi jiray waxaan tagi jiray kiniisadaha sanadkii hal amba 2 jeer sida Christmaska iyo Easterka booqashadaasina diiniga maahan laakiin waxaan raaci jiray qoyska xaqiiq ahaan markaan dhalinyarada ahaa wax hadafa kama ahayn nolosha waxaan dareemiyay in aanan muhiim ahayn waqtigaas waayo noloshu waxay ahayd ooni kaliya raaxayso markii koowaad ee masaajidka la wuxuu ahaa masaajidkan markan halkan ku soo degay waxaan la kulmay mid kamid ah walaalahan oo ka soo jeeda dalka Cumaan waxaanu iga waramay diinta Islaamka aragtidii koowaad ee masaajidkan soo galayna aad ay u fiicnay weynihina way soo dhaweeyay waxaan dareemay raaxo saa'id ah anigoo dhamaantood la sheekaystay waxaan ku soo noqnoqday booqashada masaajidkan waxaan bilaabay inaan la tukado bartaana dad badan ayaa ku bartay masaajidkii wuxuu ila noqday wax cajiib ah kadib waxaan ogaaday in ficiladan aan sameynay aanan dhameystirnayn sidoo islaamnimadu sheegayso waayo muslimaan xilligaas weligii ma niyeysan inaan muslim noqdo laakiin waxay iga ahayd inaan wax badan ka barto islaamnimada laakiin talaabadii ahayd inaan masjid galo waxay ahayd talaabadii ugu muhiimsanayd ee aan qaadan noloshayda iyadoo wax badan ii faahfaahisay macluumaad badan oo iga mugdisanaa waxaan akhriyay kutub aad u badan gaar ahaan kutubta siirada Nabi Muhammad calayhi salaatu wassalaam laakiin kitaabka kaliya igu qanciyay iguna dhiirigeliyay inaan fikirkayga islaamku saxsan yahay waa kitaabka aasaaska tawxiidka ee uu qoray Dr. Bilal Philips wuxuuna ahaa kitaabkii xadiday waxaan aaminsanaayay aragtiyahaygii waana kitaabi qanciyay igana dhigay inaan u gudbo marxalad aan kordhisto culumta islaamka ma sha Allah balkeen Daniel aan eegno waxa ku qoranay waxa kamid ah aayadaha wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu qul ara'aytakum in ataakum 'adaab Allah aw atatkum as-saa'atu ghayra Allah tad'uuna in kuntum saadiqiin markii koobaad aan kitaab qur'aana kala furaa waxa uu ku turjunaa afka ingiriisiga kadib waxaan akhriyay gabi ahaantiiba bilow ilaa dhamaad laakiin aad uga maan fikirin waxaan akhriyo waayo macluumaad aad u badan ayaa u xambaarsanaa laakiin shayga kaliya si cad iiga soo horbaxay ee aan ka fikri jiray xaqiiqaantii wuxuu ahaa jiritaanka Allah subxaanahu wa ta'ala kadib qanaacadaydii ayaan ku adkaysay taas oo ahayd waxaan ka soo fikiray ee aan soo akhriyay oo dhan inay 100% saxsanaayeen kadib waxaan go'aansaday inaan talaabo u socdo kadib aan ku dhawaaqo shahaadateynka laakiin maan garanayn maxaa waajiba aan sameeyaa kadib galab kamid galabyada aanoo computerkayga isticmaalaya kadib waxaan isku yiri maxaad la baqanaysaa islaamnimada dib ugu dhigaysaa talo maxaa sababay wax sabab ah ma jirin dadkuna waxay lahaayeen islaamnimada u degdego dib ah u dhigin waayo ma doonayno inaad adoo gaala dhimato kadib waan go'aansaday waanan shahaad
markaan ku dhawaaqay kelmadahaas waxaan ku jiray qolkayga keligay kadib markaas qalbigaygu aad uma gulgilmin waan idhi laakiin saameyn badan oo aad aygumay samayn laakiin waxay saameeyey waxa uu ahaa salaadii koobaad ee aan tukado waxaan uu ahaa masjidkan aan fadhino markaan sujuudsanaa waa markaas saameyn aada dareemay markaan sujuuddii bilaabay oohinta waan joojin kari waayey oo aad ayaan u ooyi run ahaantii waan aad baan u ooyi weliba gaar ahaan marka dareen fiican aad ku bilowdid markaad sujuudsan tahay waxaad dareemaysaa in allah subxaanahu wa tacaala uu kuu dhoweeyey markaas waa markuu addoonku rabbigii u dhow yahay waana dareemaysaa waxayna ahayd sujuuddii koowaad ee aan abid sujuudo waxaan xaqiiqsaday inay shahaadu tahay xaq aynase ahayn wax afka keliya lagaga dhawaaqo لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله anigu waxaan ahay nin ku cusub islaamnimada kaliya waxaa muslim haystay sano waxaanan bartay wax kastoo ku waajiba inuu qof muslim ah sameeyo muhiimaddu maaha inaad wax badan ama wax yar aad barato ee waxa weeye inaad samayso intii karaankaaga u bandhig dadka kale islaamnimada wadada ugu fiican ee aad ugu bandhigi kartaana waa inaad u dhaqanto sidii muslim saxa islaamnimada uuna ha kala hadlin tus dhaqanka islaamka waayo dhaqankaaga wanaagsan ayaa geli kara xaggii hadalka aniga ahaan suuraddii ugu muhiimsanayd ee aan qur'aanka ka akhriyaa waxay ahayd suuratulfaatixa sababtuna waxay ahayd waxay koobsanaysaa aasaaska towxiidka taas oo u muhiim ah qof kasta oo muslim ah sababtayna aasaaskayga islaamnimada maalin ayaan go'aansaday inaan barto aasaaska akhriska luuqadda carabiga hamigayga muu ahayn inaan meel gaar ah ka gaadho waxaanan ogaaday inaan baahi qabo inaan ugu yaraan wax akhrin karo waxaana i baray saaxiibkii qaaliya oo ka soo jeeda dalka Cumaan wuxuuna wax ka dhigaa dalka Baath anigu waxaan ahay Daniel saaxiibkiisa qaaliga ah Daniel waxaan la bilaabay inaan wax ka baro tajwiidka iyo carabida kadib waxaan dareemay inuu muhiimad siinayo inuu dhigto una samreeyo barashada diinta islaamka maalin kasta anagoo kulmi jirnay oo subci jirnay quraanka maalin kasta quraan ayaan akhrin jirnay waxayna igu qaadan jirtay saacad ama saacad barkeed si aan u akhriyo hal bog oo quraan ah waxayna ahayd waddo aad u dhibaato badan muddo kadib Daniel waxa uu dhameeyay quraankii kariimka isagoo tajwiidsan 3 jeer ayaa uu dhameeyay waxaana la xiriirsiiyay sheekhaygii aan ijaasada ka qaatay ee ijaasada ii dhigay oo ka soo jeeda dalka Urdun waxaana la Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud waxaan sidoo kale ku dul akhriyay macalinkayga sheekhiisa oo ka soo jeeda dalka Urdun annagoo ugu baaqnay inuu yimaado magaalada Baath isagoo baray sidoo kale muslimiin badan oo halkan jooga alxamdulillaah waxaan ku dhameeyay qur'aanka gacantiisa wuxuuna i siiyay shahaadada ijaasada ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه guud ahaan waan fahmayaa ku hadalka luuqadda carabida laakiin xaqiiq ahaan markay kelmaduhu ka kan yihiin oo aanay faahfaahsanayn waxaan kala kulmaa dhibaato yar laakiin si guud waan fahmaa waxa laga hadlayo waxaan odhan karaa 80% ama 70 ayaan fahmi karaa wada sheekaysi u dhaxeeya laba qof waxay noqotay ku hadalka aan ku hadlayo kuma hadli karo waayo waxa iga dhiman practice-ka ama joogteynta laakiin waxaan hubaa haddii aan practice gareeyo ama joogteeyo inaan degdeg ugu hadlayo waayo waxaan si wacan u bartay akhriskeeda iyo fahankeeda insha Allah practice yar markaan sameeyo si dhib yar anaan ugu hadli doona insha Allah حميم والكتاب المبين
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. maxay ahayd taariikhdu askarnimada ku soo galay maalin ka mid a maalmahan oo jooga masjidka oo dhammaysanay salaadii kadib qof ayaa ii yimi waxaanu ahaa askari kormeera hore ulamaan shaqayn askarta kadib waan fahmi waayey waxa uu u socdo kadib waxaan weydiiyey kumaa tahay ku soo dhowo masaajidka wax kastaa soo dhag maaha kadib wuxuu igu yidhi haa dabcan waxaan doonayaa inaad ogsoonaataan haddaad muslimiintiin hadduu qof codsi shaqaa ka dalbado booliiska in aan soo dhoweynayno kadib waan fikiray kadib waxaan ku idhi waan doonayaa codsigaas horena ugamaan fikrin codsigan oo kale waa arrin xiisihiisa wata codsigaasna waan gudbiyey alxamdulilah waan helay shaqadii markaan interview badan maray intii aanan aqbalin shaqada ka hor dabcan waa la ii soo bandhigay shaqada laakiin maan aqbalin xilligaas waayo waxaan ku xidhay shaqadayda 3 shuruudood oo kale ah shardiga koobaad inaan salaada jumcada ku tukado masjidka mar kasta shardiga labaad inaan tukado 5 salaadood waqtigooda iyo jamacoodaba shardiga saddexaad iyo inaanan xiirin garkayga waayo waxaan doonayaa in la igu garto inaan muslim ahay gaar ahaan magaalada aan joogo aad ayay muhiim tahay ma doonayo inaan islaamnimadayda qariyo anigu muslim ayaan ahay waanan ku faanayaa waxaan doonayaa in la igu garto garka oo ciddii aragtaaba tidhaa waa muslim alxamdulilah daaliyan waxaan siinay duruus aad u tiro badan sida tafsiirka suuradda yuusuf iyo casharo kale alxamdulilah ciyaal da-yaaraha ayaa soo galay diinta islaamka qaar kalena waxay yimaadeen masjidka taasoo ka dhalatay dadaalka walaaladeen sida daniel kulligeen waxaas weydiinaynaa maxaynu halkan u joognaa oo aynu noolnahay sidoo kale anigu waxaan isweydiiyey su-aashaas sanado badan maan helin jawaab igu filan ilaa aan ka islaamay haddaad su-aashaa jawaabteeda doonayso waxaan kugula talinayaa inaad wax baaritaan badan samayso ood wax badan ka akhrido islaamka haddaan hadalkayga koobo diinta islaamka wax badan ka akhri waayo waa dariiq ku geynaya jawaabtaada ha dheeraata ama ha kaabato dhammaanteen waa inaan ka wada qayb qaadano fidinta diinta islaamka dhammaan bulshadeena iyo kuwa muslimiinta ahayn waxaa noo qorshaysan inaan samayno waxyaabo badan oon ka samayn doona magaalooyinka iyo gobolada waxay noqon kartaa sida shir oo kale kaasoo noqon doona shirkii koowaad ee ka dhaca koonfur galbeed UK anagoo iskugu yeedhi doona dhammaan muslimiinta iyo gaalada qaadan doonana waqti fiican oon ku caddayn doona maxay tahay islaamnimadu iyo siday muslimiinta iskula dhaqmaan dhexdooda siina wadi doona kor u qaadista dacwadda aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daniel sidaad wakhtigaaga noogu hortay ood noo siisay allah ku barake qur-aanku waa hadeeye